بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نحن ربنا مانتي إن ماشان كفهنو مثلا كقحنو وحلها strategic management and strategic management waxay ka kooban tahay a combination of two words oo strategy and management anaga waxaan rabnaa inaan fahanno strategic management maxaa la hadaan ka bilaawno strategy maxaa waaye strategy waxaa lahaa the simplest way someone can achieve his desired objective strategy waxaa lahaa wax fududeynayo waaye inuu qofka company gaaro hadafkiisa saa ognahay company walbo dhisan wuxuu u taagan yahay inuu hadaf muayyan ah gaaro then hadafkaas inuu qofka company gaaro waxa ka horeysa waxa waa inuu strategy isticmaalo strategy waxaa lahaa tacticskii iyo qidadihii iyo farsamooyinkii oo qofka company isticmaali lahay kaasoo u sahlayo waaye inuu gaaro hadafkii lahaayeen adminis waxa waaye hadeenan jirin strategy waxa adkaan doonto in la gaaro hadafkii uu company-ga lahaay marka waxa waaye strategy-da waxa waaye it simplifies the achievement of organization's objective waxay fududeysaa in la gaaro company-ga ujeedkiisa waaye and sidoo kale strategy-da waxa la it answers how the organization achieves its objective and haddaan u imaano maxaa la dhahaa strategic management wuxuu leeyahay strategic management waxa waaye process dheer waaye uu ka kooban 3 step ka kooban waaye step koowaad waxa la dhahaa formulating the strategy ina strategy-daada marka koowaad inaad qaabeysid waaye marka laga hadlayo ina strategy-daada sameysid oo qaabeysid waxaa laga rabaa inaad soo diyaarsatid company-gaaga vision-kiisa iyo the mission statement of the company sidoo kale waxaa laga rabaa inaad taqaanid external opportunities and threats waxyaabaha banaanka ka ah kaasoo saameynayo company-gaaga inuu guul gaaro mise inuu failure noqdo waxyaabahaas externalka ah marna waxay ku noqon karaan waxyaabo fursad ku ah waaye sometimes waxa waaye waxyaabo ka hor istaagi kara waa inay hadafkaaga inaad gaartid sidoo kale inaad taqaanid waaye internal strength and weakness sidoo kale inaad taqaanid waaye the long term objectives kaaga waaye kaas waxay noqonaysaa waxa step koowaad oo ah markii aad sameynaysid istiraatiijiyadaada inaad waxyaabahaas oo dhan inaad soo diyaarisid laga rabaa step-ka xiga wuxuu noqonayaa waxa waa strategy implementation markii aad soo diyaarisid istiraatiijiyada waxa laga rabaa inaad istiraatiijiyadii fulisid laga rabaa marka rabtid inaad fulisid istiraatiijiyada waxa laga rabaa resource allocation inaad resource-gaaga hagaajisatid oo aad qoondeysatid laga rabaa idminas waxa waaye resource-ga wax ugu muhiimsan waaye markii aad rabtid inaad istiraatiijiyadaada fulisid minus waxa waaye qofna shaqo ma qaban karo haduusan resource shaqada lagu qabanayo haduusan haysan qaybta ugu dambaysa waxay noqonaysaa strategic evaluation ina istiraatiijiyadaada qiimeysid ay noqonaysaa qiimeynta markii laga hadlayo waxa waaye inaad isbarbar dhigtid wixii aad soo qorsheysay iyo wixii aad gaartay inaad isbarbar dhigtid waaye waxa waaye comparing between what we have planned and the actual outcome we have achieved marka waxa inaad isbarbar dhigtid waaye shaqadii aad qabatay wixii ka soo baxay iyo wixii aad rabtay inaad gaartid inaad isbarbar dhigtid haddii islahaadaan excellent yaa tahay waa fiicanta istiraatiijiyada successful ay noqotay haddana islahaanin waxa laga rabaa inaad sameysid a corrective action oo ah maxaa iga qaldanay markii aan sameeyay istiraatiijiyadan maxaa qaldanay wixii qaldanay inaad iska saxdaa laga rabaa sidoo kale markii laga hadlayo istiraatiijiyada waxa lahaa strategy enables the organizations to achieve their objectives istiraatiijiyadu waxay fududeysaa in sahasha in la gaaro kambaniyada hadafkooda istiraatiijiyada waxa waaye wax sahlayo mise farsamooyin iyo qidado oo qofka managerka isticmaali karo kaasoo sahlayo in la gaaro company objective-kiisa kaasa waxa la strategic management strategy lahaa. Assalamu alaykum.